soonka wuxuu ku noqon karaa xilli kuleyla wuxuu noqon karaa xilli qabow inta badan kuleylka aad u darani oo ognahay wuxuu leeyahay fuuqbax oo maqaarkaaga qofku dhiidaya ayada biyo kugu yaraayeen ayaa hadana dhiidaysa markii aad dhiido waxa ka baxay fluid fara badan maadaama dareere badan ka baxay meesha waxa ka dhalan kara inaan fuuq baxdo taas waxaan wada ognahay marka kuleylku qofkii waxa laga yaabaa inuu biyo ku yar yihiin afurka biyo badan cabin habeenkii xilliga dhex biyo badan cabin asagoo ciladaha haysato hadii hadana uu kuleyl ku noqoto waxa kulay aad ay uga duwan tahay xilligaas kale waxa aad u fiican inuu qofku jawi qabo ku jiro oo na sooman yahay markaas oo kale laakiin wuxuu si fiican yahay marka uu ku sii daro caalamiyeeto tusaale ahaan 30 daqiiqo socda taasi asaga ay kabaysaa qofka muhiim ayay u tahay laakiin adoo kuleyl ku jira iyo hadana socod xaalada aan isku wadi karin waxaan leeyahay soonku uu fiican yahay xilliga kuleylka iyo qabowga labadaba in la soomo laakiin inuu jawigu qabow yahay ayaa qof walba u fiican maxaa yeelay fuuqbax ay leedahay xilliga kuleylka oo qofka afkiisa aad u qalalaya markuu qofku uu ma waxyaabo ku garan kartay kaadiya yaraanaysa xaalado badan ayuu yeelan karaa isticmaalka cuntooyin kala duwan hab difaac ahaan yes qofku wuxuu kala kulmi karaa dhibaatooyin tusaale ahaan haddii qofku uu isticmaalo gabi ahaantiisba cuntooyin carbohydrate oo tamar jirka u yeelaya qofkiina ku cayilaya laakiin aysan ku jirin cuntooyinkiisa protein lahayn vitamin lahayn waxyaabo kale lahayn caafimaad ahaan uma fiicna laakiin carbohydrate ka cuntada tamarka waa loo baahan yahay si maskaxda qofka ay u shaqeyso maskaxda qofku energy ay ku shaqeeyda waa sokor waa loo baahan yahay wax macaan inuu qaato laakiin waa inuu qofku cunto isku dheelitiran qaataa qofka hadduu cunto isku dheelitiran qaato oo qudaartii cuno protein wax la raasho hilibkii iyo malaayga iyo wixii isticmaalo fiberska isticmaalo qofka markaas ay xaaladiisu aad u sii wanaagsananaysa sidaan wada ogsoonahana difaaca qofka waxa qayb weyn ka ah inay cuntada noqoto cunto dheelitiran وين عنتظر لها تا بروتين وين لها تا فيتامين وين لها تا معدنتي وين لها تا كربوهيدرات ولو ودا باهيا dhamaantood in la wada qaato sidoo kale difaaca waxa qayb weyn ka ah iyo waliba hatta dadka cayilan markay rabaan inay miisaanka iska dhimaan biyuhu waa la muhraan waana hadda ku sheegay qofku cuntooyinka iyo waxyaabaha kale to hadii uu cuno waxa muhiimada ugu weyn ah biyaha ugu yaraan qofku inuu isticmaalo waaye 2 litir oo biyaha ama 8 galaas oo biyaha inta uu afuraya biyuhu waxay qayb weyn ka yihiin caafimaad ahaan jirkiisa sidoo kale nafaqo celinta quruxda maqaarkiisa iyo joogitaanka maalinka dambe oo dhan uu soomeeyaa qofku si uu jirkiisa isku dhimin wuxuu u baahan yahay cuntooyinka qaarna isticmaalo cuntooyinka la rabo inta badan inuu isticmaalo cuntadiisa horta waa in protein lahaata si murqaha iyo jirkiisu oo u adkaado cuntooyinkaasi aad ay u fara badan yihiin qofkana waxa laga rabaa marka cuntooyinka protein kale inuu badsado cuntada protein kale qofku badsado muruqa dhisidka iyo istaagiisa qofka ay wax badan ka qayb qaadanaysa sidoo kale vitaminka oo ah sidii waxyaabaha qaar loo sameeyay lahaa inuu qaatana muhiim gaar ah u tahay hooyooyinka uurka leh xilliga ramadaanka waxa loo baahan yahay inay ku dadaalaan cuntooyinkooda waliba si ka duwan sida dadka kale maxaa yeelay hooyadu waa laba nafley waxa loo baahan yahay in labadaas nafba ay badbaadiso taasna waxay ku iman kartaa in hooyada ay isticmaasho cunto dheelitiran oo nafaqo leh sidoo kalena waa inay badsataa biyaha sidoo kale waa inay isticmaashaa supplements ama daawooyin yara caawinaya sida kuwa dhiigga sare u soo qaada ayadoo caadi ah ay hooyinku Soomaaliyeed intooda badan waxay noqdaan dhiig la'aan sidaas darteed ayadoo oo soomana waxay sii noqon kartaa xaalad aad u khatar marka waxa loo baahan yahay inay isticmaasho haday dhiiggeedu hooseeyo kale waxyaaba dhiiggeeda kor u soo qaadi kara HB-geeda oo kale sidoo kalena cuntooyin dheelitiran oo nafaqo leh talooyinka aan siino dadka ugu badan ee xilliga Ramadaanka nagu soo booqdo istaalka waa talooyin aad u kala duwan horta xilliga ugu badan ee dadku noo imaadaan waa afurka iyo suxuurta tusaale ahaan anigu kala qayb emergency jooga markii aad afurtid hal saac weynimo dad badan ayaa ku imaanaya suxuurtan sidoo kale inta dad badan waxay ka cabanayaan lallabo fara badan matag dibiriyo wareer iyo waxyaabo la mid ah marka waxaan leeyahay talada ugu muhiimsan asiyan waxay tahay cuntada kala tartiibi hal mar markii maqribka adduunka aad maqashid cunto badan biyo badan hal mar ha isku cabin وينو قفكو سميا سي او ترتيب او استعمالها marka ugu horeyso inuu biyaha timirta isticmaala markuu biyaha timirta isticmaalo oo qofkii shay kale cuni karo bur ama wixii kale oo samakaas oo rabo ama xabad limo oranjiya shay asiga oo rabo ama tufaax wuxuu isticmaali karno isticmaalo maqribka oo tukado qofka ugu yaraan cabaar soo socdo markaas ka horna biyo soo cabi oo 2 galaas ay ka badana kadib wayna u fadhiisaa qofka afurka wuxuu cuni lahaa markaasna waynu biyaha iyo afurka cuntada cunay oo isku dhex wadin cuntaduna maskaxdu waxay u baahan tahay waqti
ay ku dareento in ay dhihi karto waan dherganahay ugu yaraan 20 daqiiqo oo kale laakiin haddii 20 daqiiqo ka yar baaquli badar ku cuntid maskaxdaada jawaab kuma siin karta inaad dhergan tahay in kale marka waxaa loo baahan yahay qofku inuu cuntada kala tartiibiyo markaas kadibna cuntada intii uu dareemi karo inuu calooshiisa u fiican tahay markuu isticmaalo waa inuu qofku iska joojiyaa intaas kadib muhiimadda ugu weyn ama waxa dadka kala talina waxay tahay cuntada saliid leh qof asagoo maanta dhan gaajaysanay cunto saliid la cunaay bur sambuus isticmaal laakiin saliidda ku yaraato iskana yaray tan kale waxay aad isticmaalaan cabitaanka aad ku macaan cambe qare oo la shiiday oo haddana lagu daray sokor aad u fara badan ayaguna siiba cambuhu wuxuu kicinayaa caloosha sisinta sidoo kale oo sokorta badan ayaduna ma wanaagsan ugu yaraan sokorta iska yareeya dadkanaga waxa ugu badan kula talinaya waxay tahay cusbada sonkorta basbaaska iyo saliida afartaas shay in iska yareeyaan haddii afartaas shay iska yareeyaan caafimaadkooda wuxuu noqonayaa mid taam ah cuntadana ay si ayra u cunaan xilliga suxuurtana cunto qofku tamar u yeelaysa inuu isticmaalo way fiican tahay oo laguma lahan wax carbohydrate iska dhaaf carbohydrate wax loo baahan yahay maxaa yeelay maalinkaas oo dhan tamar kusoo joogto ayaa u baahan tahay guud ahaan daawadayaal barnaamijka caafimaadka iyo xalqadii difaaca jirka iyo weliba caafimaadka aan uga hadlaynay halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa anigoo Dr. Samir Cabdullaahi Batan waxaan kaga tegayaa caafimaad wanaagsan iyo soon wanaagsan